su-aasha koowaad qofkana soo weydiiyey wuxuu ka hadlayaa nin waddamada Yurub jooga bahalkan qamaarka iyo ciyaartiisa bartay xaaskiisii ay isku qabsadeen carruur badan oo haysa iskana xanuunsan tahay markii dambana ay ku heshiiyeen haddii uu mar dambe bahalkaa ku laabto inay ka furan tahay kadibna ku laabtay su-aashu waxay tahay inuu sheegayo inuusan ogeyn marka uu ciyaarayay inuusan ogeyn inuu sheegayo haddaba su-aashu hadday tahay dalqadaasi ma dhacaysaa marka hore dalqaddu waxay ahayd dalqad shardi ku xiran masalada tacliiqu talaaq la yidhaahdo weeye waxaa kaloo yidhahdeen carruur badanna way haysatay way xanuunsan tahay waana dalqaddii ugu dambaysay wax saamayna ma laha inay xanuunsan tahay wax saamayna ma laha inay carruur badan hayaan wax saamayna ma laha carro gaala inay joogaan waxaan kaloon wax saamayn a lahayn inay dalqaddii saddexaad tahay iyo tii koowaad inay tahay wax saamayna ma laha keliya siday wax u dhaceen sharciga dalaaqu kaftan iyo kas isku mid waaye halaathun jidduhunna jiddun wa hasluhunna jiddun dalaaqaa ma dhacayaa asalka haa wuu dhacayaa waa dalaaq shardi ku xidhnaa oo dalqaddaa inay ka furan tahay haddii uu mar dambe ciyaartaa ku noqdo iyo qamaarkaa xaaraanta sida uu qirsan yahay waana ku noqday wuu xasuustaa inuu shardigaa lahaa inuu ku noqdayna wuu xasuustaa waxay u baahan tahay xaalad gaar ahoo markii uu ku noqonayey marka dambe waan mirqaamay waan isgaran waayey iyo waa gaar markii uu ku noqonayey hadduu isagoo maankiisu uusan joogin oo waalan ku noqday qofaan maankiisu joogin dee qof waalan waay hadduusoo ahaa qof waalan oon miyir qabin markii uu aadayey bilaabayey ciyaarta gelayey dee qof waalan oon miyir qabin waxba kama furmaan laakiin haddii ay tahay meesha jacayl iyo mirqaanun uu u galay kadib buu mirqaamay ay tahay dee dalqadu way dhacaysaa kas iyo kaftanba dalaaqu haddii sidii sharciga waafaqsaneed loo rido u dhacaya